وإسك السحورة رمضان كمركة تاي حتى يؤذن ابن مكتوم. وكان وها لبلال وابن مكتوم شأن آخر شاكك يعرنك العيلة في رمضان بشهر رمضان. فقد كان المسلمون مسلمين توحي في المدينة مقالة المدينة يتسحرون كوي سحورته أما هرابتنا والإذا داي على آذان أحدهما متكود آلان كيسا أي كسحورا جرين ومركو بلا الآلام أيا لسحورا جرين ويمسكون وحي أفايسن جرين أو عنادا لقد جوغسن جرين عند آذان الآخر ككلمركو آلامه وابن مكتومة ونطيعا شاقنا يوم مكتوم وين دلعاية تسكى ورنجري ورواقي برية ضانا هنا سجل آذان. كان بلال وحوها يؤذن كي آذامه بالليل هبين بو آذام جري ويوقظ الناس دكا يوهر دكا كي عنجري. وكان ابن مكتوم نوحها يتوخى كي بيكسبه وسيسي عنو ايكتا الفجر وهذا بريدي سايو ايغن جري فكما دامو ان دلعي سوى حلم ايغن جرينه دكا اوش ايغن جري فلا يخطئه مركا اسوسن قفي جرين مهاجر ضد بلن با شيغي سيدا درتيد waxay dad badan wataan ay sheegaan mar walba qofka way ka fiican idan al jamaa'atu khayrun min al fard mar walba jamaa'ada ayaa hal qof ka fiican illa inay jamaa'adaasi tahay jamaa'a shar wada maana waqad balaga waxa gaaray min ikram an nabiy nabiga maamuusiisa alayhi salatu wasalaam li ibn maktum oo maamuusayo ikraamayo an istakhlafahu inuu uga tagay magaalada madiina ala al madinati عند غيابه رسولكم مركو كم مقنعه عنها مقالة المدينة 10 مرة دور طبان قار ورسولك جهاد يسفر كلا مقالة المدينة وقبحي وقدت لي عبد الله بن مكتوم إنه دتك التكيو. فكانت وحي هيد إحداها مداد يوم مالين بيهيد غادرها رسولك ومدينة كتغي لفتح مكة فرشد وقدت لي باكمل هيد. وفي عقاب غزوة بدر دقالك بدر قداشي عقاب وعربتي سمركي دماتي لو عربتي صدمبي بعد وين دبدي ينزل الله ألا وحو سودجي على نبيه سوحو كسودجي من آي القرآن قرآن كآياتي سوحو كسودجي ما وحبو سودجي آياتها سوء يرفعو الله سروا وقاضيو شأن المجاهدين لمنك إلهي درتي قالده ولد قالما مجاهد تاسم ده ميلك لا ودنينا مجاهد معني سوى تاس ألا درتي قالده منك ولد قالما هذا فيري وتعريف كاملة ألا درتي ما هو وحكله قالده ما هدسك لا ولد قالما ألا درتي قالده منك ولد قالما يا مجاهدين تكوا سيه أو يفضلهم والله مركز سروا قاعد دسك مجاهدين تا أو يفضلهم والله ديرات iyo garaada dheeraada iyo martaba dheeraada iyo sharaf uu siinayo ala alqaacidiina kuwa iska fadhiyay in dagaalka aadin markuu alla uu soo dajiyay oo saamxu ay yeelay alle liyamshata si uu dardar ay u galiyo dardar uu gala al mujaahidu ninkii mujaahidka ahaa alla darti gaalada wala dagaalamayay si uu nashaad u qaato dardar hor leh ila jihaadka xaqi wayanafa iyo inuu kabiya diido uu ka santaabo oo naco alqaa'id kii fadhiyayna aan alquud fadhigay kii fadhiyayna wiilada laga tagiye alla ka aadna jihaadka gal fa asfara wuxuu raad kaga tagay dalika arintaas mujaahidiinta sara loo dhigay fi nafsi ibn maktum abdullah ibn maktum naftiisa ayay taasi wax kaga tagtay oo wuxuu san isagu dambi ku lahayno naafa إنها فنمتكيسي لو ظهر مريبا لب كانتي مركو حولي تلو وحانو أنا ندمبي كلها إنسان لا يظهر مريكرا وعز عليه وحا لبتي أن يحرم إن لقى قضيه من هذا الفضل فضلك يا ديرات كاس يا زيادة يا مرتبة يا شرفتات إن لقى قضيه أي لبتي وقال وحولي يا رسول الله رسولك إلهي لو أستطيع هدان أوذي لها الجهاد هدان أوذي لها لجهدت وانجهاد لها مركو حنا نعيد أوذي لها إنسان ليظهر مركرا ثم سأل الله ألا يويدي بقلب خاشع قلب خشوع سنبوه وكويدي سأله أن ينزل إنه ألا سودجيه قرآن إنه سودجيه في شأنه سجد درادي
iyo arrintiisa iyo wa sha'ni amhaalihi isaga oo kale dadka ay isku midka yihiin ee asxaabul acdaara dadka naafada ah ee cudurdaar kale oo kale inuu ilaahay qur-aan ku soo dejiyo oo minman ka mid a nimankaasoo tacuuquhum ay ka hor taagan tahay caahaatuhum naafanimadoodu musiibada ku dhacday ee naafadiihi caniljihaadi jihaadka naafanimadooda ay ka hor taagan tahay wa jacala wuxuu bilaabay yadcuu inuu ilaahay baryo fii daraacatin si isdullaynahoo ilaahay isu dullaynayo inuu yidhaahdo allaahumma allahayow anzil soo deji cudrii ilaahayow cudurdaarkayga soo deji allaahumma anzil cudrii allow cudurdaarkayga soo deji famaa asraca maxaa ka dhaqsa badnaa an istajaaba allaahu inuu alla ka yeelay jalla wacaza liducaa'ihi baryadiisii xadasa zayd ibnu haabit wuxuu ka sheekeeyey zayd ibnu haabit waa taqaaniino dee maaragtay dugsiyada qur-aanka oo dhan ba wuu ku wada qoran yahay zayd ibnu haabit oo waa kaatibulwaxyi waad garanaysaan kaatibu waxyi rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxyigiisa kii qorayay wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ilaa janbin rasuuli rasuulka dhinaciisaan fadhiyey buu ihi salawaatu ullaahi calayhi fakashiyatu waxaa rasuulkii daboolay assakiinatu xasiloonidii markuu xasili jiray oo la qaban jiray markuu waxay ku soo degayey tii baa qabatay fa waqacad waxaa dhacday fakduhu rasuulka bawdadiisii yaa calaa fakdii bawdadeeda ku dhacday famaa wajadtu ma arkin buu yidhi shay-an waxoo asqala ka culays badan min fakdi rasuulillaahi sala allahu alay wasalam wax culayskiisa aan la qaadi karayn yaa i fuuray marka culayskii dhabtaa ma ahayne waa markuu waxyiga rasuulku kusoo degayo bawsaa cuslaan jiray uma shuriya waa laga tegey wixii yahay qabtay baa ka tegey canhu rasuulka waa laga tegey fa qaala wuxuu yidhi uktub qor yaa zaydu zaydow qor buu yidhi fakatabtu waan qoray oo maxaan qoray laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina waalmujaahiduuna fii sabiili illahi baan qoray laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa iska fadhiy oo jihaadka ka fadhiistay oo min almu'miniina iyo waalmujaahiduuna kuwii dagaalamay fii sabiili illaahi alla dartii nimankii gaalada ula dagaalamay marna ma sinna baa layidhi intii baan qoray marka waxaa fadhiyey meesha ibnu maktuum baa fadhiyey faqaama waxaa istaagay ibnu umma maktuumin wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow fakayfa see la yeeli biman laa yastatiicu aljihaada bal qofkaan jihaadka awoodinna see la yeeli famaa in inqadaa kalaamuhu hadalkiisiiba muusan dhammaynin xataa gashiyat ilaa ay ka qabato haddana rasuula allahi rasuulka ilaahay assakiinatu xasiloonidii oo xaaladii qaban jirtay markuu waxyuu ku soo degayo ilaa ay mar labaad qabato fa waqacad haddana way dhacday fakduhu bawdadiisu calaa fakdii bawdadeeday ku dhacday fawajadtu waxaan helay min siqalihaa culayskeeda maa wajadtuhu waxaan helay fi lmarati aluulaa markii hore oo kale culayskii oo kale uma shuriya canhu waa laga tegay rasuulka faqaala rasuulku wuxuu yidhi iqra' bal aqri maa katabtahu waxaad qortay yaa zaydu zaydow bal aqri buu yidhi faqara'tu waan aqriyey laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina markaan halkaa mari baa wuxuu yidhi faqaala rasuulku wuxu uhi uktub war qor buu yihi qoro hayru ulidarari dheh intaa ha lagu daro aayadda intaasaa maqnayd macal cabdiqaadir oo dee qur-aanka waardiye ka hayaana wuu dareemay inay aayaddu maqnayd hayru ulidarari marka waxaa la yidhi kuwa aan dhibka lahayn ninkii isagoon meelle laga haynin oo naafi iyo balaayo midna ahayn maaragtay iska fadhiyey waaye laakiin ninkii cudurdaar leh isaga lagama sarreeyo cidina kama sarreeyo fa nazala waxaa soo degay alistithnaa'u istinihii iyo ka soo reebiddii alladii istinahaasoo tamanaahu uu rabay ibnu maktuum uu rabay ayaa hayru ulidarar baa la yidhaha hayru waa adaatu istinaa ulidararna waa mustathnaa waad ogtihiin mustathnaa weeye mustathnaa minhuna waa qaaciduunta waxaa laga soo reebi kuwa ulidarar ah kuwaas iyagu waa cidina kama sarraysa wey وعلى الرغم إن كسته ومن أن الله إن الله سبحانه وتعالى أعفى وكعفي عبد الله بن مكتوم وأمثاله وحي لمذا وإساقه وكراه من الجهاد جهادك وكعفي فقد أبت
way diiday oo way nacday oo way ku gacan saydhay nafsuhu naftiisii at-tamuuxu hamada weynayd wey nafta meesha sare higsanaysa wey wax walba oo xun yeelaynin an yaqcuda inuu fadhiisto maca alqaacidiina kuwii fadhfadhiyey inuu la fadhiisto wuu nacay dad badan baa nacay waad ogtihiin dad fara badan yaa nacay siirada markaan ka hadlayna waxaad soo aragteen ninkii ahaa maaragtay xudayfat ibn alyamaan aabi alyamaan iyo nin kale yaa markii la aaday maaragtay uxud oo jihaadkii wax jooga aan la arkin oo laba oday oo 80 jir ah oo aan kici karaynin camr ibn jamuux camr ibn jamuux horu isagu soo baxay camr ibn jamuux isagu horu ahaa yaa waxaa la yidhi way sheekaysteen waxaa la war dhegaysanayow lam yabqa lana min alxayaati ilaa di'ru ximaarin kal dameer inta oo dameer biyo ka qaba yaa nolosha nima ka adhaali dameer muxuu biyo ka qaba waa maalin iyo laba inagana inta umaynaha dhow 80 jiraan nahay maxaa ina dhex dhigaa lidha carruurta iyo dumarka maxaa ina dhex dhigay meeshii bay soo baxeenoo markaasay jihaadkii soo galeen isagoo muslimiintii inta la jebiyey yaa markii la isdhex galay baa dee odaygan mayna arki jirine qaar asxaabta a dilay markii dambe waad ogtihiin odaygii ahay yamaan xudayfat ibn yamaan aabihi qaar asxaabta a dilay marka dad badan baa ahaayeen dadkii nacay inay meelahan fadhiyaan cabdullaahi ibn mascuud oo indhala ayaa ka mid ah wa cala araqmi inkasta oo min ana allaha in alla subxaanahu watacaala actaa uu ka cafiyey cabdullaahi ibn maktuum wa amhaalahu iyo dadka la mid a min aljihaadi aw can iljihaadi uu ka cafiyey faqad abad way diiday oo way nacday naftiisii at-tamuuxu maaragtay hanka weynay nafta hanka xagga khayrka ah ninka xagga kale hunguri weyn baa la yidhaha hunguri weyn laakiin hanweyninku waa wanaag bay noqon kartaa oo xagga khayrka ah an yaqcuda inuu iska fadhiisto uu kuudadsado maca alqaacidiina kuwa farfadhiya ama kuududa ayuu nacay wa caqada alcazma go-aan kama dambaysa ayuu gaadhay cala aljihaadi inuu jihaado fii sabiili illahi ilaa alla darti xataa isagoo indhala dalika taasi waxay ku timid liana anufuusa alkabiira nafafyaalka waaweyn laa taqnacu kuma qanacdo ilaa bikibaari alumuuri arrimaha waaweyn maahan nin weyni wax weyn unbaa deeqo weyn wax yar maaragtay ma rabo faxarasa wuxuu ku dadaalay mundu dalika alyawmi laga bilaabo maalinta ayada calaa an laa tafuutahu inaynan dhaafin oo aynan ka tegin ghaswatun hal duulimaadna maba hadhayo hala ihago waxadada wuxuu u qoondeeyey linafsihi naftiisana wadiifataha hawsha ay qabanayso fii saaxaati alqitaali goobaha dagaalka hawsha ay ka qabanaysana isagaa u xadiday calankoon halaydhii buu yidhi calanka unbaan saa u hayn marka nin indhalaabaano anaanba cararayn calankii meeshaan buu ka taagnaan ilaa la iga dilo fa kaana wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda aqiimuunii ijoojiya oo itaajiya bayna asafayni labada saf dhexdooda safka muslimiinta iyo ka gaalada dhexdooda hala ijoojiyo waxamiluunii ii dhiiba alliwaaca calanka halay dhiiba muslimiinta axmiluhu lakum anaa idin qaadaye wa axfaduhu anaa ilaalinaye fa ana anigu acmaa nin indhala baan hayo laa astatiicu alfiraara aan carari karay ilaa la idilo marka ma tegay waanu dagaalami xagga iyo xagga meel la igaga imanayo male wa fi sanati araabica sanadii alraabicata cashara sanadii 14 lilhijrati hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalama caqada cumar ibnu alkhadaab ayaa go-aan wuxuu ku gaadhay alcazma go-aan adag buu ku gaadhay oo aan laga soo laabanayn calaa an yakhuuda inuu la galo cumar maca alfurus nimankii reer furus ee aan muslimiinta ahayn ee dhulka iiraan deganaan jiray inuu la galo macrakatan faasila dagaalkama dambaysahoo lagu kala baxo dagaalka lagu kala baxo weeye labada qolo miduni muddo ayuu dagaalkii socday marka dagaalkii lagu kala bixi lahaa yuu cumar diyaariyey yuu doonay inuu go-aankiisa gaadho macrakadaasoo tudiinu daba rogto oo afgembida dawlatahum furus dawladoodii dabagedido oo afgembida wa tuziilu tirtirta mulkahum boqortooyadoodii wa taftaxu furta adariiqa waddadana
amaama juyuushi almuslimiina muslimiinta ciidamadooda u horfurta waddada u xaadha fa kataba wuu qoray cumar ilaa cummaalihi nimankiisii maamuladii gobollada maamulayaashii gobollada cummaaltaasaa la odhan jiray yaquulu isagoo leh laa tadacuu ha ka tegina oo ha ka imanina axadan qof ha ka tegina qofkaasoo lahu silaaxun hub leh nin kasta oo hub leh meesha waxaad ka garanaysaa soomaalidu hadda sida ay tahay oo kalaa la islaha ciidamo meel jooga ma leh marka la dagaalami ninba qorigiisa ayuu la soo bixi jiray waxaan la ogaaday markaasaaba loogu xoog badan yahay dawlad hadda saahina way jirtaa ogaada dawladda Switzerland la yidhaahdo ciidamo ma leh dadkao dhan unbaa ciidama dadka dhan unbaa kolba sanadkii dhowr bilood baa lagu kaxayn waa lagu tababari weligaaba tababar bay ummadda dhani ku jirtaa rag iyo dumar laakiin ciidamo meel ku xaraysan oo la leeyahay waa ciidamadii Switzerland ma leh laakiin nin waliba hub walba uu yaqaan waa lagu bari shacbiga haddii dagaal uu la soo gudbaanaado kulligood baa geli waxaana la ogaaday hab lagu dagaalamo habka ugu fiican waa kaa shacbiga hadda la sii ogaanayaaba marka muslimiintu sidaasay ahayd haddii dawlad islaami ay soo noqotona sidaa un bay noqon doontaa insha allahu tacaala in dadka dhan ay ciidamada iyo hubka ay yaqaaniin oo nin walba inkastoo aynan habboonayn hadda iska yaraa khatar tahay hadda in nin walba qori loo yaraa dhiibo oo dee dadkii la iskuma wada hadlayn karo laakiin asxaabtii iyagu waxay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen innaguse saa la iskuma hadlayn karo oo qoryaha in la iska xareeyo markii dad lagu aamini karo la arko yaa habboon islaamiyan laa tadcuu ha ka imanin oo ha ka tegana buu yihi axadan cid oo lahu silaaxun hub leh aw farasun faras leh aw najdatun ama geesinimo lagu og yahay in geesi oo dagaalyahana hub meelun buu ka heli doonaa xataa hadduusan hub lahayn najda waa geesinimada xaddhaafka aw ra'yun ama ra'yi ku biirin kara tala leh tala fiican ilaa ad aragtaan wajahtumuuhi ilaya anaad oo ii soo diraysaan waalcajala alcajala hana la dhaqsado hala dhaqsado uli cumar watafiqat waxay bilowday jumuucu lmuslimiina muslimiinta ciidamadoodii tulabbii inay labayka tidhaaho ay yeesho nidaa alfaaruqi cumar weeye naanaysiisii kii xaqa iyo baatilka kala bixiyey dhawaaqiisii inay ka jawaabto watafiqat waxay bilowday jumuucu lmuslimiina muslimiinta maaragtay jamaacooyinkoodii badnaa ee kala badnaay ee aada u fara badnaay tulabbii inay ka jawaabto nidaa alfaaruqi ninkii xaq iyo baatilka kala bixiyey cumar alfaaruq ahaa dhawaaqiisii iyo baaqiisii inay ka jawaabto wa tanhaalu cala almadiinati magaalada madiina inay ku soo hoobato min kulli xadbin wa sawbin dhinac kasta saa iska dhe waa tacbiir la isticmaalo dhinac kasta in lagaga soo hobto wa kaana waxa ahaa fii jumlati haaulaa'i kuwa magaalada madiina ku soo hobtay waxaa ka mid ahaa almujaahidu almakfuufu ninkii mujaahidka ahaa indhaha la'aa almakfuufu albasari ee indhaha la'aa cabdullaahi ibnu maktuum ahaa fa amara alfaaruuqu faaruuq oo cumarihi wuxuu madax uga dhigay uu amiir uga dhigay cala aljeyshi ciidankii alkabiiri ee weynaa sacad ibna abi waqaas ayuu madax uga dhigay wa awsaahu wuu la dardaarmay wa waddacahu wuu sagootiyey walamaa balaga aljeyshu ciidankii markuu gaadhay alqaadisiya meesha qaadisiya la yidhaha waa meel ciraaq ku taale waa meeshii lagu jebiyey furusta baraza waxaa soo mudhbaxay oo dadkii ka soo dhex baxay cabdullaahi ibnu maktuum laabisan isaga oo gashan oo ku gadaafan dircahu camburbereedkiisii mustakmilan isaga oo dhammaystirtay cuddatahu maaragtay heensihiisii iyo hubkuu ku dagaalamayey hubkii uu ku dagaalamayay cuddadu wa nadaba nafsahu naftiisa ayuu wuxuu u rashaxay wey naftiisa ayuu wuxuu u soo rashaxay lixamli raayati almuslimiina muslimiinta calankooda inuu qaado waalxifaadi calayha inuu ilaaliyo aw ilmowti duunaha ama inuu sokadeeda ku dhinto calanka meel ka sokays oo xagga gaalada ka xigtay inuu ku dhinto labadaa un mid waltaqa aljamcaani waa loo ogolaaday marka waltaqa aljamcaani labadii ciidan ayaa fooda isdaray oo iska hor yimid fii ayaamin halaahatin 3 maalmood qaasiyatin oo qallafsan wey caabisatin oo weji tuban oo naxariis lahayn wey yani dagaal adag waxtaraba way dagaalameen wey min alxarbi wey xarab ya xaarabana waa la yidhaha ixtarabana waa la odhan karaa iyo ixtiraaf
waxtaraba way dirireen alfariiqaani labadii kooxood xarban dirir iyo dagaal bay dirireen lam yashhad lahaa uusan soo marin taariikhu lfutuuxi furashadii dadka muslimiinta ay dhulka furinayeen taariikhdeedu masiilan mid iyada oo kale ah xata injalaa ilaa uu ka muujiyo alyawmu athaalisu maalintii saddexaad can nasrin mu'azarin guul weyn lilmuslimiina oo u sugnaatay muslimiinta fadaalat waxaa afgamboontay ama dabagadoontay waa isku midune dawlatun dawlad baa afka u dhacday oo dabagadoontay oo min acdami duwali dawladaha kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa wazaala waxaa tirtirmay carshun boqortooyo oo min acraqi alcuruushi boqorrada ama carshiyada kii ugu xididada dheeraa ama ugu qotada dheeraa ee ugu taariikhda fogaa wa ruficat waxaa sare loo qaaday raayatu tawxiidi calankii tawxiidka fii ardi alwasaniya dhulkii wasanka iyo sanamka lagu caabudi jiray wa kaana wuxuu ahaa samanun haada annasri guushaa iyada ah samantii iyo qiimihii lagu dhiibay ee lagu gatay waxay ahayd nasriga almubiin oo weynaa mi-aatu shuhadaa'i boqolaal shahiid ayaa guushaa lagu gaadhay bilaash laguma gaadhin wa kaana waxa ah min bayni haaulaa'i shuhadaa kuwa iyaga ee shuhadada ahna waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu maktuum baa ka mid ahaa faqad wujida waa la helay sariican isaga oo yaallo oo saa u dangiega mudarajan bidimaa'ihi oo dhiiggiisa dhex jiifa dhiig badan intuu ka baxay qofka dhiiggiisu uu qariyey waay mudarajan dabaalanaya bidimaa'ihi dhiiggiisa wa huwa isagoo yucaaniqu ku dhegan raayata almuslimiina calankii muslimiintana isagoo weli saa u haysta oo aan laga qaadan halkaas ayuu ku dhintay raxima allaahu maaragtay cabdullaahi ibnu maktuum innagana isaga oo kale iyo waddadiisa iyo waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam allah ina mariyo wasalaamu bismillahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam saxaabiga maanta aan qaadanayna waxaa la yidhaahdaa majza ibnu thawr asaduusi runtii maaha asxaabta aad aynu u naqaano maaha laakiin dowrka uu leeyahay maanta markaan qaadano ee taariikhdiisa aan qaadano ad garan doontaan saxaabigaasi dowrka uu kasoo qaatay maaragtay fidinta diinta islaamka iyo jihaadka marka wuxuu ahaa nin kusoo caan baxay xagga jihaadka ayuu ahaa taariikhdiisuna aad bay inoogu gaaban tahay oo waxaa laynaga tusinayaa uun dhowr dagaal uu ka qayb qaatay oo wacdarag maaragtay gaara ka muujiyey mu'arikhiinta ayaa ka faalleeyey oo waxay dhaheen majza'atu ibnu thawr ninka magacaa la yidhaaho majza'a inaad magacyada bal horta si fiican u barataan weye majza'atu ibnu thawr oo qoladiisuna saduusi ahayd kamiyun waa haliyey geesi hadda ka horran waan soo aragnay kamiy ereyga waa shujaacun waa geesi waa kelmadaha micnaha badan yani siyaalo aada u kala duwan bay carabtu ku cabirtaa kelmadda geesinimada aad basil baa jirta oo kamiy baa jirta oo shujaac baa jirta oo waxaa jira jari baa jiro oo miqdaam baa jiro oo waxaasoo idin iyo kuwo kasii de badan kulligood waxay isaga soo wada biyo shubanayaan waa geesi kamiyun weeye waa nin geesi oo yaab leh baasinun oo geesi oo libaaxa qatala wuxuu dilay 100 buu dilay oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida ayuu dilay mubaarazatan isu soo bixid ay isu soo baxaan labadoodu ayuu ku dilay famaa baaluka maxaad ay kula tahay weeye bal ka waran seed filaysaa biman qatalahum dadka uu laayay oo mushrikiina fii khidami almacaariki dagaalka dhexdiisa iyo dagaalka moolkiisa bal inta gaal uu ku dilay ka waran marka haddiiba 100 uu ku dilay isu soo baxa isu soo baxeen mubaarazada waxaa la yidhaha waa hadda lama isticmaalo waa la joojiyey
laakiin waagii hore geesinimada dhabtii maaragtay ay jirtay yaa hebelow soo bax sida ciyaalku hadda ay isu horeystaan ay isu legdayaan u legdamaan uun iyagoo hadda isma dilayaan ciyaalka midun baa la legdi laakiin berigaas mid baa la legdayay legdin uusan kacaynin dib dambe uu dhamanayay taasaa mubaarasa la yidhaahdaa isu soo bixid iyo is-horays marka 100 buu sidaa ku dilay intii uu marka isagoo la dagaalami dilay bal ka waran intaa way kasii tiro badan tahay runtii marka nin gaala dhameeyey buu ahaa ninka la yidhaha Majza ibn Thawr as-Sadusi marka haddii ilaahay subxaana watacaala uu jihaadkii soo nooleeyo oo dawladda islaam ay noo dhaliyo oo ay noqoto inaan gaalada la dagaalano waa Majza waa in la xusuusto wey qacqaacay hadda yaa la yaqaanaa laakiin Majza-ana de nin aan ka liidan buu ahaa maan ka laalaadin Majza ibn Thawr kamiyun weeye waa halyey geesi ah baasilun oo libaaxaho geesi ah qatala wuxuu dilay 100 oo min almushrikiina ka mida mushrikiintii gaar ahaan mushrikiintii farisiinta ahayd mubaarazatan isu soo bixitaan ay isu soo baxaan ayuu ku dilay famaa baaluka maxay kula tahay wey maxaad fili oo kale wey baal waa caqligaaga bal ka waran isweydii adiga wey biman qatalahum inta uu laayay bal adigu isweydii bal intii ku laayay waa kuwan hum kuwii ulaa'i waa kuwan un iska dheh aad buu u kala saaray hum waa kuwan ulaa'i kuwani al abtaalu ee geesiyada ama halyeeyada al amjaadu oo sharafta leh oo min jundi illaahi alla ciidankiisa ka mid ah nin alla ninkii alla dartii uunu dagaalamo wax kale u dagaalami uusan jirin magac uma dagaalamayo male adigu aad magac hesh male oo halagu yidhaahdo waa geesi aad madax noqotid uma dagaalamayo reerkiisa uma dagaalamayo dhul oo keliya uma dagaalamayo wuxuu u dagaalami alla darti dadka sidaasa waxaa la yidhaahdaa jundigii ilaahay jundiga ilaahay ee dhabtii waa kuwaas waa nimanka qarad kale iyo ujeedad kale aan marna u dagaalamayn litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa kalimada alle si ay sara u noqoto oo keliya u dagaalamaya kuwaasaa jundiga ilaahay layidhaha waa kuwa alla leeyahay isu adeysanayo wa ina jundanaa lahum alghaalibuun uu leeyahay ciidamadayadu waa kuwa adkaanaya marka ciidamada ilaahay ee dhabta ah siuusan nin walba isaga sheeganin waxa weeyaan waa kuwa alla dartii unu dagaalama hadaf kale iyo ujeedo kale iyo qarad kale ay dunida ka leeyihiin ma leh xataa wax kale iska daaye qarad shaksi ah ma leh mid isaga darti uma dagaalamayo isaga dartiis uma dagaalamayo ilaahay darti buu u dagaalami oo waxaan marar badan idin xusuusinay qisadii cali ibn abi talib radi allahu tacaala canhu oo dagaal isaga oo lagu jiro yaa nin aada u xoog badan oo hadda sida hurmusaankan maanta aan qaadanayno oo kale ah iyo cali baa iska hor yimid dagaalkii dhexdiisa iskaga hor yimideen marka maadaama ninka gaalkii u ahaa nin aada dagaalyahan u ah calina hadda aad taqaanin dagaalkii labada nin ka dhexeeyey wuxuu socday muddo dheer dhib kastaa la iskala maray buuraha laga daadegay dhib kastaa dhacay markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala cali ayuu ka siiyey caalsaaraha ama libinta ninkii dhulkuu dhigtay cali baa legday marka seeftii intuu qaaday buu wuxuu damcay inuu halkaa rubadkaa kaga dhufto markii uu seeftii intuu kor u qaaday uu rabay inuu maaragtay dilo yaa gaalkiibaa cali wejiga kaga candhuufay cali marka wuu iska sii daayey ma diline wuu iska dhaafay ninkii gaalka ahaa seeftiisii intuu qaatay boorka iska jafay buu iska tegey marka waa lala yaabo waxaa la yidhi war ninka maxaa isaga sii day ninkii waxaana waa rafaada aada isla marteen ma markii ilaahay kuu gacan geliyey baad iska sii daysay un sahlanaantaas markaasuu yidhi waxaan u sii daayey ninka maydaan arkaynine wejigaygaga candhuufay ui ninkii
marka waan xanaaqay waxaan u xanaaqay linafsii naftayda yani in sharaftaydi iyo karaamadaydii meel looga dhacay ilaa ninkii wejiga kaaga candhuufo o dhan waad ka xanaaqaysaa marka waxaan ka yaaba u yihi haddaan dilo inuu noqdo dilkaasi mid aniga aan isdaafacayo oo daraadday aan u dilay ninkan iga xanaajiyey ee wejiga iga candhuufay ee i ahaanaystay ee meesha igaga dhacay ninkii inaan sidaa u dilo ayaan ka yaabay buui aniga hadda ninkan wax kale u iga qabay male alla darti ayaan markii hore u dilayey marka aniga ma raba buu yihi waxaan aniga daraadday dagaalka uguma jiro saasuu ku sii daayey marka taasaa waxay inoo tahay misaal muujinaya ninka jundiga ilaahay ihi sida uu yahay waa ninkaas xataa wax isaga xaddi nafsihi wax naftiisa ay shaqo ku leedahay xataa ayna lahayn wuxuu u dagaalamayahay waa lilaahi litakuna kalimatullahi hiy alculya waa kuwaas marka jundiga ilaahay cali iyo amtaashiisa weeye ridwaan ullahi tacaala calayhim maaha dadka sheeganaya maanta dunida meel kasta waa layska sheeganayaa meel kasta mujaahidiintii shuhadadii waxaasaad maqlaysaa meel walba dunida meel walba sida loo badan yahayna marka wakaa miisaanku ninkii jundiga ilaahay ihi waa kaas waa caligaa oo kale oo waxaba yaraatee dantiisa oo meesha ka dhex muuqata ma leh min jundi illaahi oo alle ciidamadiisa ka mid a yanfuduuna iyagoo iska jafjafaya canhum xaggooda gubaara alqaadisiya dagaalkii weynaa ee qaadisiya ee lagu jebiyey dowladdii weynayd ee furus boodhkeeda iyagoo iska jafaya jaziliina iyagoo faraxsan bimaa aataahum allahu wuxuu alla siiyey oo min nasrin guul ah ay ku faraxsan yihiin marka sheekada waxaa lagaaga bilaabayaa isagoo uu dhammaaday dagaalkii qaadisiya waxaa lagu tusayaa nimankii asxaabta ahaa ee qaadisiya galay ee ilaahay subxaanahu watacaala uu guusha raaciyey muqtabitiina iyaga oo ku bogaagsanaya oo ku faraxsanon weeye bimaa kutiba wixii loo qoray liikhwaanihim walaaladoodii ashuhadaa'i ee dagaalkaas ku shahiidoobay ee ku dhintay oo min ajrin abaalguda taana iyagoo ku faraxsan dhinaca kalena mutashawiqiina iyagoo u hilowsan ilaa macrakatin ukhraa dagaal kale dagaalkaasoo takuunu ahaata sinwan walaal la ahaata ama dhig u ahaata oo u dhiganta lilqaadisiyati dagaalkii qaadisiya mid u dhiganta fii rawcatihaa quruxdeeda wa jalaalihaa iyo sharafteeda tii oo kale ayay sugi marka waxay u noolaayeen jundiga ilaahay wuxuu u noolaa inuu iska raaxaysto ma ahayn inuu meel iska fadhiyo mushaar qaataanna ma ahayn ee waxay ahaayeen kuwo sugaya shahaado ayay kulligood wada sugayeen dagaal hadduu dhammaado ma odhanaynin ilaahay baa naga dhameeyey tii bal aan iska raaxaysano maynan odhanaynin ee waxay sugayeen mid kale waxay maaragtay kuunyayeen walaaladoodii dhintay ee dagaaladii ku dhintay ee shahaadada ilaahay siiyey shahaado sharafka ilaahay uu siiyey marka mujaahidiinta runtiihina waa kuwaas mutarabbisiina iyaga oo sugaya weeye iyana mutarabbisiina iyaga oo sugaya oo u dhabacanaya sugaya waa isla midii uune an ya'tiyahum inuu u yimaado amru khaliifati rasuulillaahi rasuulka ilaahay ninkii bedelay ee khaliifadiisa amarkiisu inuu u yimaado cumar ibn alkhadaab ahaa bimuwaasalati aljihaadi in jihaadka la wado oon la joojinin maxaa jira dowlad islaamihi jihaad marna ka fadhiisan mayso maxaa jira maalintaad adigu jihaadka dayso waa lagugu soo duuli saas bay taariikhda islaamku inoo sheegtay in alla intii muslimiintu ay jihaadka wadaan lama haweysanayo dhulkooda iyo guryahooda iyo dadkooda inna lama haweysanayo laakiin maalintay jihaadka iyagu ka fadhiistaan waa marka lagu soo duuli taariikhduna weligeed sidaas ayay ahaan jirtay waa sidaas siduu ilaahay u leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari
walyajiduu fiikum gilda. waxaa la rabaa meel kastoo xuduud laga leeyahay gaalada inay iyagu cabsi ku nool yihiin si ayna kuu hawaysanin. maxaa jira adigu haddaad tidhaaho intaad ku ta'asurta waxyaabaha ay sheegayaan assalaam alcaalami, annidaam alcaalami, altacaayush silmi, waxaana ay shubayaan in nabadgelyo lagu wada noolaado, in maxaanku idhaahda aan la dagaalamin. waxa haddaad aada rumaysato iyaga unbaa kugu soo duuli oo ciidamo munaafiqiin oo ay leeyihiin ayay kugu sallidayaan, ama dadkiiba isku diray muslimiinta. bal u fiirsa hadda idaacad kasta haddaad furto oo dunida ah waxa la laynaya ay dagaaladu ka dhacayaan ee la fiirsanaya waa muslimiin uun. turkiya iyo akraada laleeyahay way islaynayaan ee laleeyahay xaq bay u leeyihiin iyo uma leh, waa uun muslimiin waxaan islaynayaan. ciidamada turkiya waxay iska gashay ilaa xuduudda ciraaq oo ninkay raba kurdiintii bay dili. marka wax la hadli ma leh. maraykanku wuxuu yihi ma odhan karo, aniga ma odhanaya ka soo laabteen, waajibkooda ay gudanayaan. marka kurdiyiinta laleeyahay hala laayo waa kuwa la yidhi ciraaq baa laga celinayaa oo dhulkii ciraaq inta la soo gooyey diyaaradaha neeto ay hawada ka waardeynayaan ay odhanayaan kurdiyiintaan ilaalinaynaa. ma aha da warkaas war oo aniga aan idiin sheegaya b b c da oo si fiican uga dhagaysta. ani warkay maaha. dhulkaas shamaalul ciraaq oo dhan ay akraadu degan yihiin waxa weeyaan hawadaa laga ilaaliyaa, oo dagaalkii khaliijku markuu dhammaaday kadib ilaa maanta dayaarada ay ciraaq leedahay ma mari karto. ciidamo ciraaq ay leeyihiinna uma soo dhowaan karaan. maxaa la leeyahay intaas? dadka masaakiinta ah ee kurdiyiinta ah ee qaxootiga ah ee ninkaas sadaam xuseen la yidhaaha ee inkaar qabaha ee mujrimkii uu laayay yaan ka celinaynaa oo xuquuqul insaankaan ilaalinaynaa oo bani aadamnimo ayaa noo geysay, saasay leeyihiin. dhinaca kalena waxay ku soo fasaxeen ciidamada turkiya inay iska laayaan, waana la daawan. wax juu odhan karana ma leh. jarmalkaa yaraha hadlayoo u kaadi baa layidhi adiga ma aadan fahmin ujeeddada eh. arrintu maaha in dad la ilaaliyo maaha, ee waxa weeyaan qolaa loo dan leeyahay muslimiintuna laysku gumaado. marka waxaasoo dhan waxay ku yimideen markii muslimiinta ay islaamkooda ka tageen. hadalku intaa ku soo ururi ay madaxu noqdeen kuwa aan islaam danka lahayn ama aan lagu tilmaami karin inay yihiin muslimiin. maxaa jira dadka saa dadkooda u gelaya, u gacan geliyey gaaladii iyo cadowgii, u gacan geliyey la safan gaalada, kitaabkii ilaahay tuuray, laguma tilmaami karo inay yihiin muslimiin. marka asxaabtu sidaasaa markuu dagaal dhammaado mayna raaxaysan jirin ee waxay sugi jireen jihaad kale. taasaa waxay keentay in laga cabsado oo la tixgeliyo oo agtooda la iman waayo. laakiin markii raaxe iyo nolol oo keliyata lagu fikirayo waa iyada la noqday siduu nabigu sheegay gusaa'un ka gusaa'i sayl, mutarabbisiina iyaga oo sugaya uuno oo u dhabacanaya an ya'tiyahum inuu u yimaado amru khaliifati rasuulillaahi, rasuulka ilaahay khaliifkiisii bedelay cumar ibn khadaab ahaa inuu u yimaado oo uguna yimaado bimuwaasalati aljihaadi, in jihaadka la sii wado oon la joojinin. ajra in jihaad la joojiyo marnaba sax maaha. oo maxaa loo sii wadi? lijtitaasi alcarshi, in xididada loo siibo boqortooyadii alkisrawi ee boqorkii iiraan ee reer kisra, min juduurihi ilaa xididkiisa in la siibo. lam yatul ma uusan sii dheeraanin tashawuqu algurri, nimankii bariirta lahaa ee wejigoodu dhalaalayay wey, sharaf daraaddeed, sharafta ilaahay uu siiyey. almayaamiini ee sharafta lahaa, sugitaankoodii ay sugayeen amarka cumar radia allahu tacaala canhu, waxba ma sii dheeraanin. iyo wa tashawufuhum, iyo sugitaankoodii iyo uhanqaltaagoodii ay arrintaa ka shintirinayeen. waa isla miduun tashawuf iyo tashawuq. ka shintirintii waxaad ka shintirinaysaa waxa weeye waxaad leedahay goormay dhali, hashani goormay dhali. gaar ahaan ka shintirintaa waxa ay ku timaadaa reemiyiga, hal baa u dhalaysa, marka hashii baa la sugi talo goormay dhali, berri bay dhali, saadan bay dhali. shintirintaasaa la yidhaha waxaad aada u sugaysa weye oo weliba aad ku faraxsan tahay. tashawufku marka sidaa wey. iyo wa tashawufuhum ka shintirintoodii oo waxay ka shintirinayaan
amarkii khaliifatu lmuslimiin goortuu imanayo odhan doona hala dhaqaaqo ilaan laiskama dhaqaaqayo oo haddaan la isdirina dagaal lama geli karo oo la khilaafo amarkii amiirka. fahaa huwa waa kan daa rasuulu lfaaruuqi, faaruuq oo cumara ninkuu soo diray waa kan, waaba kan wey, yaqdimu isagoo ka imanaya min almadiinati magaalada madiine isagoo ka imanaya ila alkuufa magaalada kuufa isagoo imanaya. kuufa waa magaalo ciraaq ku taallo oo hadda iska baaba'day, kuufi iyo basra, marka basra weyn hadda magaalo weyna, laakiin kuufa waxaan u malay inay wax iska yar tahay. waa meesha la yidhaahdo cali baa ku aasan ama uu ku aasan yahayo kuufa. wa macahu isaga ay la socdaan ama isagoo sida ninkaasi amrun amar isagoo sida amar qoraala oo min alkhaliifa, amarku wuxuu ka socdaa khaliifihii oo ahaa cumar ibn khataab, wuxuuna u sidaa liwaaliha magaalada kuufa ninkii madaxda ka ahaa ee maaragtay ahaa maamulihii gobolka, abi muusa alashcarina ah. amarkana wuxuu ku siiyey bilmudiyi inuu horu wado bicaskarihi ciidankiisa inuu la baxo, inuusan fadhin meesha uusan odhan madaxdaan ahay, uusan meesha iskaga raaxaysanine uu baxo oo ciidanka hogaamiyo. bilmudiyi inuu la dhaqaaqo oo uu la tago, uu la ambabaxo bicaskarihi ciidankiisii. waliltiqaa'i in lala kulmo oo lala dagaalamo, maya waliltiqaa'i inay isu yimaadiin uu la kulmo maca jundi almuslimiina ciidamada muslimiinta alqaadimiina ee ka imanaya min albasrati magaalada basra. magaalada basrana ciidamo kale ayaa ka imanaya, marka ciidamada basre ka imanaya idinka isu imaadaa la yidhaho isu taga. iyo walintilaaqi macan si wada jira in loo dhaqaaqo ila alahwaazi gobolka ahwaaz la yidhaahdo, gobolkaas ahwaaz la yidhaahdo in la aado. waa meel ku taalla iiraan iyo ciraaq dhexdooda, meelna hadda ciraaq bay tahay. waxaan oo dhan gaaladaa samaysay